السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا سلام يا ولاله قالقة حمودو فربضان هديرتان وين كلام مقنين حمليني وحسوك ايدن بيس رمضان كي انتي كور ريسي ان ما انت لبا شيء او كوبان بان ان شاء الله يدين شيء دونا ان mid waa midda ugu horeysa waxa soo galay xilligii xagaaga ama samarka saa u taqaanaan ciyaalka muxuu ahaa waa la kaxeeyaa waxaan malaynayaa hadda cajaladahaygii hore aad soo dhageysateen waxaa jira caruur laga shakiya ama iyagu laftooda dacwad geystay ama si kaleeto un ah waxaad iska ilaalisaan ilmaha inaad markaad wadamada dibadaha geysaan ama wadankiiba aad ku celisaan in la gudo ama maaragtay in waxyeelo loo geysto ilmahaasi jirkooda iyo maskaxdooda intaba gudniinku waa mamnuuc sidoo kale guurka qasabka ah isaguna waa mamnuuc cajalado hore ayaa jiro aan uga soo sheekeeyay oo aan sharciyada aan ku sharaxayo marka tan iminka maanta waxay ii tahay uun inaan idin soo xusuusiyo wixii hore oo aan hore u sheegay inaan soo waliba idinku adkeeyo qaarkood xataa lamaba sugaba inaad dambiga gashid xitaa hadii laga shakiyo adigoo airport jooga ilmaha laga qaadan ama la idin soo celinaya ilmaha lama adiga bixi kartaa laakiin ilmaha ma baxayaan soo marka taasna way jirtaa si degan oo tartiiba ilmaha ka wargeliya ka qayb geliya safar hadaad aadaysaan safarka aad aadaysaan sida uu yahay u macaaneeyo xiisa u geliya ilmihii oo rabo oo jecel oo dhararaya oo sugi laaba inaad maaragtay aad sii kaxaystaan markaas ay taadaladiin waa iskeenayaan iyagoo faraxsan bay baxayaan xitaa haday su'aal ka timaado markaad airport ka tagtaan ama aad sii socotaan midda taas halkaas intaan uga baxaya hadaad faahfaahin intaas dheeraad aad u baahato cajalada hore oo sharciyada ah ayaan ka hadlay oo aan si ballaaran aan u faafiyay runtii u faahfaahiyay baan ka wadaa runtii marka halkaas ka daawada insha Allah waxa kale oo aan ugu soo kordhay oo aan rabay inaan maxaa ahaa idin sheego in maanta aan soo maqlay runtii caruur Soomaaliyeed oo iyaguna Allah reer kale halka laga qaatay marka total waxa weeye reer total waxa weeye 10 caruur ah weeye baa la qaatay inkastoo laba la isku qasbay oo la isku riday ama la isku daray oo aanay ahayn sida wax la isku daray marka qoysasku waa 3 qoys weeye reer Soomaaliyeed waxa laga qaaday 4 caruur ah reer kale oo Arab ah iyaguna waxa laga qaaday 4 caruur ah oo de Soomaalidana ku xiran Arabiyiin waaye iyo laba kale oo 2 caruur ah oo reer Soomaali laga qaaday markii hore waxay isku dareen 4 carabta ay labada Soomaalida ah ay 6 caruur ay dhaheen iyo 4 caruur laakiin saas ma aha waxa weeye 4 caruur oo Soomaali ah iyo 2 caruur oo Soomaali ah laba qoys laga kala qaaday insha Allah qoyskaas anigu ma garanayo arinku maanta baan soo maqlay waxaan jeclaystay inaan halkan ayaguna fariin u faro waalidiinta halkaas waxa xaq u leeyihiin inaad abukaate heshaan qareen aad heshaan hadaydan qareen haysan fadlan ila soo xiriira qareemo fara badan oo aan ku kalsoonahay baa jira oo hadda 26 bishii hadda la soo dhaafay maxkamaddu xataa go'aan ka gaartay oo aad ay kula dadaalay qoys kale oo Soomaaliyeed inaan reerahooda ama caruurtooda u soo celiyo marka celinta lafteeda ayaa waxay kala tahay laba nooc hadii aad ilmihi gacan u qaaday ama dhibaato lagu haysto de gurigii dhibaatada ay ka jirtay caruurtii lagu soo celin karo oo of course macnaha ilaa aad gurigii wax ka bedeshid caruurtii kuma soo noqonayaan marka waxaan diidayaa macnaha inaad rajo been ah oo inaan kugu abuuro oo aan ku iraado de wax kasta aan fulin karaa soo wax kasta ma fulin kari sharci iyo kala dambeyn bay leedahay laakiin inta karaankeyga ah oo aan anigu aan awoodo waan ku sheegayaa laakiin ogow shaqada qofka diilka la sameeyo oo shaqada qabanayo waa adiga waalidka marka adigu waa inaad u diyaarsan tahay inaad laftaada shaqo qabatid oo aadan intaad gacmaha laabato aadan isdhihin dad baa ku shaqeynaya ama hawl ku fulinaya qareemo aan ku kalsoonahay baa jira runtii aad ugu hagarbaxa dadka sideedana macnaha qofka joogista wadanka uu joogo hadaad la tashataan qof muddo fara badan joogay taas macnaheedu ma aha inuu system ka yaqaano waxna waa luqadii oo qofkii wadankii uu jooga maybe laga yaabo luqadii inuu yaqaano laakiin systemkii shuruucdii iyo systemkii cadaaladda ma yaqaano marka idinku laftiina qofka aad la tashanaysaan waa inaad hubtaan oo ogaataan
qofkaasiti waxa uu yahay waan maqlay hadeertan xitaa waan soo maqlay dad dhahaya may waa laga sabraya kama ka noqosho male wax laga sabraya ma jirto ilmahaaga waa ilmahaagi qalad maybe qalad waalid inaad gashay qaladkaas aad gashay dhib ma laha of course qalad weyn waaye hadaad gashay dhib ma laha laakiin qaladka waa la sixi karaa laakiin qaladka waxaa la sixi karaa marka aad rabtid adiga waalidka ah inaad isbedel keentid markaas ayaa la sixi karaa so marka waalidiinta wanaagsan oo khayrka jecel u sheega walaalaha kaleeto qaas ahaan kuwan caruurta laga qaatay inay raadsadaan dad aqoontii meesha u leh haddii laydin yiraahdo kaalaya waa idin la hadlaynaa idinka oonan qareen wadanin ha tegina meesha أنا مرنا وترجمان بنكو قبنا وكل هاللينا وما عقول ولا كل هالذكرى ترجمان بنكو قبنا لكن المها الوسع لنا وحها سنين because that كان وعدات بعرية إني دم بكوه هلان so مرة والبوادات كاسو هرجة صاحبها معها ولا لها معها إهل كاجي قرابة هذا معها so مرة دول عدين تو يكون دول عدين يعني شقدوا ذا كم ذا because لبدين العلاقة بدين كمان حيسو لكن shaqada la siiyay markii hore ayaa waxay tahay inay ilmaha badbaadiyaan soo marka su'aal kasto ay ku weydiinayaan meel bay ka fiirinayaan soo marka ha islihin aniga waxba ma qarinay waxaan qarinaya ma leh meesha waa tagaya taas ma jirto because systemka ma taqaanid bohol bay ku gelinayaan su'aal baa si lagu weydiinaya si kala uga jawaabaysa ama su'aashi baadan fahmin oo qaab kala uga jawaabaysa kursiga waa kula rogmaya oo dhanka kale kugu la rogmay marka hayeelina idinku waxa tirada u kaade waan ku imanayna taariikhda noo bedel aw kaateena noo socdo waa imanayna aw kaatahu marka ma aha inuu adig ku hadlaayo su'aalihi iyo jawaabihi kulli adaga bixinay laakiin aw kaatahu meesha wuxuu u fadhiyaa inuu marxaati ka noqdo su'aasha lagu weydiiyay iyo jawaabta aad bixisay hadii lacala jawaabta aad bixisay ay qalad tahay aw kaataha fursad buu leeyahay inuu adiga intuu ku soo jeesto ku dhaho su'aashaas hadaayto jawaabteeda sidaa baa tiriye maxaa ka wada ii balbalaari si meeshii tuhunkii iyo ma garanaysa uu uga baxo baan idin leeyahay marka ina cajalada dheereeyo ma doonayo walaalaha qaaliga ah waan idin salaamaya insha Allah هذا كلامته iyo arrimo kaleeto gabar kaleeto iyadana hawl wanaagsan aan u qabano ilmihi hata u soo celinay laba toddobaad amal baa laga joogaa ka hor baan u soo celinay iyadana cajalada gooni ah waan soo duubi doonaa insha Allah oo arrinkaasi ku saabsan iyo qaabkan u marnay iyo talooyin iyo tusaalayaal kaleeto waa anigi oo Yaasiin Cabdullaahi ah inta aanu barnaamij sidaan oo kaleeto ah aan ku kulmi doono walaalaha qaaliga waxaan idinkaga tagayaa warsan iyo weersan